Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa EBC News Now. Daawadayaal ku soo dhowaada wararka maanta. Taariikhdu waa 25 Oktoobar, waa maalin Sabtiya 2025. Warkeena waxa uu ku saabsan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa isagu khudbad ka jeediyey xafladda daahfurka tiknoolajiyadda Somaliland lagu soo bandhigo sanad kastaba. Halkaasi oo uu kaga hadlay waxyaalo kala duwan, balse hadalkiisa waxa ku jiray oo uu ku soo qaatay mushkiladda haatan haysata shacabka Somaliland ee ka haysata hawada Somaliland. Isla markaana waxa uu ka hadlay arrinta fiisaha. Haddaba daawasho wanaagsan khudbaddiisii madaxweynaha. munaasabadan aynu ku soo bandhignay carwada iyo shirweynaha toddobaad ee tiknoolajiyadda Somaliland 2025 dhammaan xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal mas'uuliyiinta hay'adaha iyo shirkadaha kala duwan hal-abuurayaasha tiknoolajiyadda maalgashatada jananada ciidamada ergada ka socota dowladda Taiwan iyo guud ahaanba marti sharafta mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan runtii ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo carwada tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo shirweynaha tiknoolajiyadda qaranka. ugu horeyn waxaan bogaadinayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland oo soo agaasintay munaasabadan heerka qaran oo isugu keentay hay'adaha dowladda, shirkadaha iyo ganacsatada, jaamacadaha, hal-abuurka iyo maalgashatada si ay u muujiyaan horumarka uu dalkeenu ka sameynayo tiknoolajiyadda ka faa'iidaysiga iyo sida aynu ula jaan qaadi karno horumarka tiknoolajiyadda iyo xawaaraha dunidu ku socoto. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha muwaadiniinta ah, kuwa waaweyn, kuwa yaryar, kuwa dhexe, kuwaan halkan laga sheegin, intaba ee ku howlan horumarinta tiknoolajiyadda Somaliland. saa la sheegayna waa tartan furan tiknoolajiyaddu, waan u baahnayn ogolaasho. qofka maskaxdiisa ay ku jirtaa tiknoolajiyaddu iyo curuntiisu. saa la sheegay waa la tartami karnaa ka Maraykan jooga iyo ka Indiya jooga iyo ka Yurub joogaba. waana suurtagala inay dhallinyaradeenaasi ay hindisi karaan waxyaabo cusub oo dunida ku cusub haddii aan la yidhaahdo. waa xukuumad ahaan annagoo dhiirigelinayna aanu go-aansanay inaanu samayno award ama national award lagu dhiirigelinayo tartanka tiknoolajiyadda oo loogu talagalay in la siiyo sanad kasta cidda ku guulaysatay awardkana uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland siinayo hal-abuurka dhallinyarada tiknoolajiyadda. waxaan anoo soo koobaya hadalka waxaan runtii shacbiga Somaliland u sheegayaa in gobashii aynu dhignay nabadda Arigabo ay sidii aynu filaynay iyo si ka wanaagsanba u qabsoontay, dadkuna ay nabad wada qaateen, ujeeddadii laga lahaana ay fushay, shacbiga gobolka Sanaagna uu maanta nabad yahay. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan culimada Somaliland oo dhiirigelin iyo wacyigelinba nabadda ku saabsan iyo kaalintii shirweynahaba ama gobasha nabaddaba in Soomaaliya inkastaynu kala guranay 18 May 1991 laakiin haddana weli waxbaa iskaga kiisa jira oo u baahan sidii loo dhammaystiri lahaa kala gurashada.
waxaa ka mid a baasaboorradii hore waxaa ka mid a saamiga xajka waxaa inagaga jira furaha telefoonada shirkadahan waaweyn runtii dadaalay weli furahaynu isticmaalnaa oo 252 maamulka hawada ah ka mid ah inkastoo ku ammaanaya wasiirka aviationku tallaabooyin badan oo uu qaaday aan filaya insha allahu inuu ku guuleysan doono guud ahaan waxaan sheegayaa uun inagu soomaaliya dagaal kulama jiro soomaali nacayb iyo cuqdadna ma qabno ee ayaheenna ayaynu inagoo xor ah ka tashanay 18 May 1991 sidaynu horeba inagoo xor ah ugu biirnay ayaynu u goosanay imakana kala gurasho ceeb la'aana hawl badan baa Soomaaliya u taala maamul goboleedyadii baa kala irdhoobay oo isu keeni kari waayay haddana waxa la yaab leh inay qaar cusub sameynayaan iyagoo kuwii hore isu keeni waayay sheekadu miyaana way ekayn islaantii xaabada qaadi kari weyday ee tidhi in kale igu soo dara Somaliland ha midowdo munaasibadan aynu ku soo bandhignay carwada